عليكم ورحمة الله وبركاته ومسكنتي فقرنا هاي كذا يريد حب هايس أريدي شغلتي أريد نحجر شغلتي وين السلام يا أصحابي أدبني السلام يا برنامج مديرين هاي وقت غير وحن ربعنا وحير كهذا ما أنت برلمانك حسن شيخ وحن قبص لا يعني شيء هرت حسن شيخ برلمانك إني أسعبت معين waxa uu sheegay isagoo waxba ka jirin wixii uu sheegi jiray ay tahay wixii uu ku banjaray ay tahay aan marnaba garowshash muujinaynin inay u sacabtamayeen ma garanaysaa waxa ka keenay waa cabsi Soomaali aan waa fiiriyo horena waan u sheegay ninka kaliya oo maamuli kara ninka kaliya dhageysan karaan oo qalad iyo sax wuxuu wada marin kara waa ninka halka kaga istaaga ee ay ka cabsadaan laakiin nin Soomaali salaaxa ama barbariya ama maaragtay iyaga dhageysta ma jirto inay xasanna sida aragtay u dhageystaan u sacabtumaan isagoo ay og yihiin dibka uu wadanka ku hayo iyo meesha uu xataa ka qodbaynayo uu degan yahay ninkii ahaa farmaajana ay firmiga u qaadan jireen farmaajo uu suuban salaaxi jiray laakiin kanu abaalkoodu yaqaana kan uu yaqaana nimankan hadda mucaaradka ah runta waa nicibtiin moogta Soomaaliya daatay nimankan hadda mucaaradka maanta inuu lahaa toos nimankan waxay ka xun yihiin horumarka iyo wanaagga aan wado iyo way ka xun yihiin inuu lahaa ma garanay waxa keenaysa nimankan uu yaqaana waxay ka cabsadaan buu yaqaana because marbay isku qaanad ku jireen marbay beenta iyo dalka isla dumin jireen marbay waxa ay ka baqayaan ka wada sheekaysan jireen marka uu yaqaana inay fuliyiin haddii xabad loo qaato uu yaqaana markay dhiida gaarto meesha kaliya looga adkaan karo taasaana keentay inuu ka adkaado mucaaradka xamar jooga xasan sheekh nimankii la dhaxay SSC la baxay waaga hore haddana koonfur galbeed koonfur waqooyi miya la baxay inuu maanta yiraahdo waxaan ku heshiinay ninka la yiraahdo firdhiye inuu sii daayo askarta uu haysto waa inuu askarta sii daaya waxa keenay shalay markii ay dagaalka ku jireen waa ninkii urur Soomaaliya ku sameynay waa ninkii lahaa adeerayaal meeshaas ka tirsantiin iska daaya qeylado la heshiiyay maanta inuu marka sida haddana yiraahdo wiilashiina ka dhintay iyo kuwiina ku soo duulay qalad baad tahay inaad haysataan idinkoo maxkamad keen waa inaad sii daysaan iyaguna ay ku qancaan kuwii u dhimanaya walaalahooda ahaa ama dadkood inuu ku diro waxa keenay mataqaana Soomaalidu qofka wanaaga u sameeya biyaha cabsiye iyaga oo man ma jecla qofka geedka ku xira oo miya bay talada ka qaataan marka xasan run buu sheegay inuu maaragtay nimankan runta u sheego yiraahdo waxay ka soo horjeedaan horumarka shalay wadankoo socda dunka horumara buu ka mid ahaa dadkii horumarka ka soo jeeday iyaguna way la jireen isku gadna way ku jireen geelan 91 ku qoranayeen marka wuu yaqaanaa waxa ay diidan yihiin iyo meesha laga galo mana dhihi karaan shalay bay geed ku wada jiraan oo xasan lama doodi karaan because xasan iyo waa isgaranayaan nimankan kale ta oo maanta leeyahay ciidanka sii daayana waxa weeye iyagu shalay isaga wixii uu ku sameeyay waxay u arkayeen wanaag laakiin maanta ay ka shalaynayaan iyaguna geed kasta marka miraha uu beerta laga gurtaa miraha lagu beero geed kasta la beero mirihiisa laga gurtaa marka horta waxaan leeyahay xasan maanta waa arkaysay dadkii dagaalkii dhacay kama hadlin wiil aroosa oo 7 beri aroos ahaa baa ku jiray kama hadlin I don't know waxa geeyay macaskartu ka ahaa ma meeshu maray ma garanayo odayadii iyo islaamiyii la jiiday kama hadlin dibkii la xaliyay kama hadlin laakiin wuu sii hajibay wuxuu la soo hortaaga oo ugu mashxaradayaan ugu sacabtumayaan in maaragtay barwaaqo la galaya inuu heshiis adduunka dhan leeyahay wuxuu u sheegay oo ay ku sacabtumayeen inuu dawlad goboleedyo iyagu heshiis yihiin taa mid baan ka leeyahay dawlad goboleedyada iyagu inay heshiis yihiin waa laga yaabaa because nimanka madaxda iyo iyaga heshiisa iyo isaga heshiisa laakiin dawlad goboleedka dadka shacabka iyo isagoo heshiis maaha laakiin waa laga yaabaa tuugadu iyagu innagana warbay inoo sheegaan oo afbay nagula hadlaan iyaguna maaragtay waxa ay rabaan ayay meesha ka sheegaan oo isu sheegaan hoosta ka wada hadlaan moogtahay marka waa laga yaabaa inay hoosta heshiis ka yihiin laakiin xasan nin u jeeda inuu qanco ama dad raali geliyo ama wuxuu sameeyo qalad qaato ma aha waa nin la taagan qaladkiisa waana
أنو دجال بنربح هالك استاجو يا وارجع نمو لكن هو خائمين تاي وكون ويقانوه نمانك أنت شعبك أردن أي رأسناي ودانس كوجو في عناه هستي وحسنوا أنت صجر بنجري أنت صجر بلان وقبحي أنت صجر كشقيستي أنت صجر جاجوسين كدرسدي حدنا إني دقيستين نمانك وصدري ما أنتنا وإياك نم النور جري أو اللي بكون طفي أنا قاعد بنصور ويناي حسن وحن لا هي وأنك صومالي كل فهم كره لكن حسن هل لو سيء لو سيء هرتق ماشي وجوه كو جوه وكذا لكن قبل ديالك كلاتو وحوي وحي اللي جوه ده هالشيء كليه إنه كركحينايو لو سيء لكن سيدا كله إنه توجد إسكاليو إنه يقانو إنه بيتك كلام بقول لك له ما كنت غيرها لكن إنه دلك كلا كحيي لكلا تجي تضع الله النقضي تحسن حواك حماي تحسن أدي أد وحماي حسن هرت الصومالي واكل فريستي يسقون أنتوا هيستوكوا ما سنة ما لها كلا ترى أنت هيستعملوا ما سنة يعني ما أنتي مركب وح يسكون راعون بالأركتونا لكن حسن وارنتيسو وحوي ويقناتو كذا ما أنت نوركيسي كم وقتي سومالينا ننكاسو كلام معمول كره لكن دي سيدي فرماجو فليه أما سيدي فرماجو إسقى بالشيء إسقى ما أكيد داي وهيسن كره دلك إيه فلني مو وهيسن واي إسقى ما هتلو كيد داي ما كرنا واي لا مركا نين بربريو تمام أما حيرنا يا ما هينكرو لكن حسن وكره يا دلك هيسن كره حسن وحليه مركا دولة ماشي يرتاح حيسو Soomaalida kala kaxaysay maanta isu soo noqdaan oo aad adigu inta halka soo qabsato la wada heshiyo in suuqayna laakiin Xasan inuu yangarawsho wadin inuu cidna ka gabanayn inuu waxba ka raali gelin karin inuu nimankii mucaaradka ah maanta ku tufay aad baan soo dhaweynaya war mucaarad maxaa ka raacay meesha war maxaa meesha ka raacay ya wax horumarkay diidan yihiin buu yiri wuxuu yiri ciyaal baan qodanayna wuxuu yiri adduunka wuxuu noqonayaa barwaaqo taamkii hore intaas uu sheegay xildhibaanadina waa sabcinaya xildhibaanadu waa qofka ka baqayaan bas u sabciya carwa kaas firin baa qaata ma qaadan karaan because way ogyihiin cabsi bay wax ku leeyihiin Soomaalidu ninka cabsi galiya reer Soomaalidu soo gumaysiga bay ku fiican tahay Soomaalidu gumaysiga ku fiican tahay marka Xasan nimankan wuu yaqaanaa maanta khudbadiisii waad aragteen wax macna leh oo ku jiray ma jirto faan iyo hanjabaad iyo maaragtay inuu istusayay inuu ka adkaaday xildhibaanada iyo nimanka mucaaradka ah inta xamar joogtay inuu ka adkaaday kuwa dawlad goboleedyada madaxda oo tuugadayo iyaguna halka joogana ay heshiis hoos ku yihiin oo kulay wax isku raacsan yihiin buu noo sheegay taanu ma beegsanayo isciidan iyo Axmed Madoobe laba qaayihiin oo hoosta kala heshiinayaan waan aaminsanahay because iyaga maantay waa nimankii ay shalgeedka ku wada jireen iyaga iyo kuwan mucaaradka iyagu isku meel buu ku wada haystay shalay waxay diidanayeen iyo waxay isku raacsanayeen buu ogyahay inuu ku madax adaygo oo dhageysan waayana waxa keenaya lama hadli karaan adiga ma aragtay ninka ahaa Siciidani oo wali Xasan ka hadlayo wali ma aragtay Siciidani intuu meel istaaga Xasan baa xilka qaaday dhaay ma aragtay farmaajo meel uu taagnaa afar ilaa 9 qeylin jiray meeluu la taagnaa 5 sano ma shaqeynayeen farmaajan inaan xilka qaado u taagnaa ar Xasanado because fara laga haya way isogiyeen waxay isla dumin jireen iyo waxay isla sameyn jireen iyo waxay ku wada hadli jireen Xasan markuu uu yaqaana hadday hadlaan sidaas oo kale banaanka u keena kama gabanayo saas aad ahaydeen waxaan ku heshiina saas ahayd budhay marka cabsi bay la aaminsan yihiin marka khaain baa yaqaan iyaguna waa khaa'imin ilaahay ka furtay isaguna waa khaain ilaahay ka furtay yaa meesha ku dhintay shacabkan qabiilku dilooday shacabkan aan dantooda garanayn shacabkan maalin walba hadaa runta u sheegto reer baa naceebta reer hebel baa ku shidaal baa lagu soo lacag inta kale yaqaan laakiin aan dadnimo lahayn kuwaas ay yaqaanaan kuwaas meesha ku baaba'aya marka waxaan leeyahay Xasan wuu yaqaanaa nimanka Xasan oo guul iyo gobonimo ku leeyahay karbaashna calada madaxana ka kabo ma xildhibaanada